soo dhawaada daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa degdeg t v hadday tahay markii kugu horeysay subscribe saar channelka gambalaalka furo si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya muuqaalada halkan aan soo gelino like saar videoga aad daawanaysid siina shargaro asxaabtaada la wadaag qaybta hoosena noogu reeb faalooyinka aad ka bixin lahayd muuqaalkan hadda aad daawanayso haddaba nala daawo muuqaalkan sirta ah ee aan ka diyaarinay gabadhan. sida aad kilibkaasi muuqaalka ah ka daawateenba waa fanaanada Farxiyo Kabayare oo masraxa la soo kortay dhalaq khamri ah isla markaana ay ku oorinayaan dhammaan dadkii taageerayaasha ee ka soo qayb galay showgeedaas. waxaana muuqatay in fanaanada ay isilowday isla markaana ay ka soo baxday qolka fanaaniinta ay ka soo baxaan inta aysan soo korin masraxa ka hor iyadoo dhalaq khamri ah wadato. sidaas daraadeedna ay bulshadii iyo dadweynihii taageerayaasha ee ka soo qayb galay showgaasi ee aad uga xumaadeen waxa ay sameysay isla markaana uu hoolka isqabsaday sawaxan iyo buuq. bal nala sii daawada muuqaalka oo dhammaystiran oo aan ka duubnay xafladaasi iyo dagaalka iyo buuqa meesha ka dhacay. channelkana subscribe saara idinkoo mahadsan, like na saara muuqaalka siina shargareeya asxaabtiina la wadaaga. sida aad ka daawateenba muuqaalkaasi waa dooda iyo dagaalka ka dhacay showga Farxiyo Kabayare ee ku qaban leed wadanka Germany kadib markii xafladii showgaasi ay masraxa la soo kortay dhalaq khamri ah. ma ahan markii ugu horeysay ee fanaanadan lagu eedeeyo inay dhalaq khamri ah la soo korto masraxyada. hadda ka horna waxaa lagu eedeeyay in iyadoo cabsan ay masrax soo kortay isla markaana bulshada dhan ay ku ooriyeen. taasi waxaa kala siman fanaanada Hani UK oo ah shakhsi kale oo gabdhaha dumarka Soomaalida ee fanaaniinta ka mid ah isla markaana caadaysatay cabista khamriga iyo inay ka soo muuqato masraxyada iyadoo cabsan. tani waxay ka dhigan tahay in fanaaniinta fadeexadahooda marba ka dambaysa ay banaanka imaanayso isla markaana ayagu ay isceebenayaan ka hor inta aysan dadka ogaanin waxa ay yihiin. Farxiyo Kabayare iyo Hani UK ayaa labada gabdhood ee Soomaalida dhanka fanka ku jira isla markaana jecel cabista khamriga isla markaana ah labada dumarka ah ee ugu cabista badan dhanka fanaaniinta Soomaaliyeed cabista khamrigaasi. mana jiraan wax ay ka jecel yihiin in ay khamrada cabaan. taasina waxaa ka cad masraxyada markay soo koraan oo ay ku ceeboobaan inta badan. showg hore oo Germany ugu dhigtay Hani UK ay sidaan oo kale ugu ceeboobday iyadoo cabsan. haatanna sanadka cusub showgi ka dhici lahaa wadanka Germany waxaa ku ceeboobday fanaanada Farxiyo Kabayare oo iyadoo cabsan showga soo kortay.